shir sanadeedkii tobanaad ee isugu yimaadaan golaha dacwada islaamiga ee Albayaan ee ku sugan dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay markaska Sunna ee magaalada Cape Town iyadoo shirkan ay ka soo qayb galeen maamulada golaha dacwada oo ka kala yimid gobolada dalka Koonfur Afrika. shirkani oo ah kii tobanaad ee isugu yimaadaan golaha dacwada Albayaan ayaa waxa uu socday muddo 2 maalmood ah waxaan laga soo saaray sidii loo xoojin lahaa dhismaha masaajidada iyo goobaha lagu cibaadeysto isla markaana xoog la saaro xiriirka shacabka aan la noolahay iyo xukuumadda intaba. markii uu shirku soo ilaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Sheekh Maxamuud Cadar oo ah gudoomiyaha dacwada islaamiga ee Albayaan ee gobolka Western Cape wuxuuna ka warbixiyay waxqabadka golaha dacwada iyo himilada ay higsanayaan isagoo sheegay in golaha ay soo dhaweynayaan isbedelada siyaasadeed ee ka socda Soomaaliya isla markaana ay la wadaagaan dareenkaasi shacabka Soomaaliyeed. go'aamada ka soo baxay waxa ugu muhiimsanaa 1 si xoojinta hawsha socotay 2 in la dhamaystiro maraakista qabyada ah 3 in tayada aqooneed ee ducaada iyo macallimiinta iyo kawaadirta ka howlgala Albayaan sare loo qaado lana sii tababaro 4 in ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dhulka amni darrada halistii ay ka jirto la siiyo wacyigelin joogto ah iyo ugu dambeyn in la xoojiyo xiriirka bulshada aan la noolahay shacab iyo xukuumad labadaba. si kastaba haatee kulankani ayaa ku soo ilaaday jawi aad u wanaagsan ayadoo la isla gartay in la meel mariyo qodobadii ka soo baxay. Cabdillaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, waddanka South Africa.